حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام وعن أو ونكسنا خيارتنا دقيساني سميل ولباء جوكتان كسو دوادا برنامج كيني إسلام كأيو عافمات كإنسان aan ku falanqaynayno daryaalka tixgelinta iyo mudnaanta islaamku uu siiyey caafimaadka bini'aadamka iyo sida uu arrintaas u qaadaa dhigay qur-aanka iyo sunnaha. يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. xalqadii hore ee barnaamijka waxaan diiradda ku saarnay shumuuliyadda iyo dhammaystirnaanta diinta iyo inuu allah ku jaangooyey dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha bini'aadamka. sidaasi la mid ah waxaan isdultaa kooban ku samaynay ahmiyadda islaamku uu siiya caafimaadka iyo sida ay kitaabka iyo sunnaha u qaadaa dhigeen mowduucaas. allah idinkii waxaan xalqadan ku faaqidi doonnaa daawooyinka rabbaaniga ah ee allah iyo rasuulkiisa inoo caddeeyeen, kuwaas oo haddii dadka sidii loo faray ula yimaadaan uu allah ku siinayo caafimaad dhammaystiran ugana fogaan karaan cudurrada asiiba bini'aadamka. daawadaas waxaa ka mid ah ducada, tufta, adkaarta, sadaqada iyo waxyaabaha la midka ah. daawada ugu xooggan uguna waxtarka badan waa qur'aanka. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa casiiska ah ku leeyahay وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. مركل الله وحو ليهي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شيخ سلطان محمد آل محمد ayaa sharaxaad inaga siinaya macaanida ay xambaarsan yihiin labada aayadood. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. آيات كان إلهي سبحانه وتعالى وحينه شيئا إنه سودتي قرآنك وحيابه قدوه شفاء يا رحمة يوجرته عافمات يا رحمة يوجرته أما عافية يا رحمة يوجرته كوا مؤمنين تا وحي إلهي آيات كوكب قبيي ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كوا ظالمين تاهنا خسارة mooyaane wax kale u siyaadin maayo. marka macna ahaan waxay tilmaamaysaa quraanku wuxuu koobsanayaa wax lagu baskado
iyo wixii lagu gaari lahaa raxmadda lagu gaari lahaa ilaahay raxmaddiisa. taasina dadka oo dhan maaha sida haddaba aayadda inooga muuqato, waxay khaas u tahay dadka mu'miniinta ah. wuxuu kulansanayaa caafimaadkii iyo raxmaddii, waxa la wixii lagu caafimaadayay iyo raxmaddii wixiina gaarsiinayay. taasina dadka oo dhan maaha, waxay khaas u tahay kuwa mu'miniinta ah. walaa yaziidu dhaalimiina ilaa khasaara, walaa yaziidu u kordhin maayo aldaalimiina kuwa dhaalimiinta ah ilaa khasaare mooyaane. marka waxaad ka fahmaysaa kuwii dhaalimiinta ahaa sababtuu waxba ugu siyaadin waayey qur-aankani waxa weeye waa rumays la-aanta aanay rumaysnayn iyo ku camalfal la-aanta aanay ku camalfalaynin. suuratu yuunus ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku yidhi yaa ayuha nnaasu qad jaa'atkum mawcidatu min rabbikum wa shifaaun lima fi suduur wa hudan wa raxmatun lilmu'miniin. aayaddaana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoogu sheegay in kitaabkan in ilaahay dadka u soo dejiye mawcidadaasoo ah haddana waxa weeye mataqaanaa xagga rabbi ka timi. waxaa inoo raacda mar labaadka wa shifaaun lima fi suduur, laabaha wixii gala oo dhan ayuu mataqaanaa u yahay shifo u yahay caafimaad u yahay. wa hudan hanuun oo ah dariiqii mataqaanaa ina tusaayey aan ku gaaraynay ilaahay subxaanahu watacaala ku gaarayna, iyo raxma wa raxmatun lilmu'miniin iyo raxmad, labadaaba sababtooda ayaa iyagana ku jirta. hudan waa cilmiga xaqa iyo ku camalfalkiisii, raxmaduna waa wixii khayr xasilayey, labadaaba ku jiraan baa ilaahay subxaanahu watacaala. marka waa mawcidadan iyo wacdigan ayaa bixinaya min rabbikum bay ka timi, xagga rabbigeen bay ka timi. wuu idinka digayaa acmaasha idiin waajibinaysa, sakdiga iyo carada ilaahay subxaanahu watacaala ayuu inooga digaya, taasoo keenaysa ciqaabkii rabbi subxaanahu watacaala. xadrigaasina waa xadri bayaana oo mataqaanaa adag bayaankiisu, asarka iyo waxa ka yimaadaana ay cidda la timaada ay mataqaanaa raadka ka yimaadaana uu ku dhici doona halali doona. culimadu marka waxay idhaahdeen wahudan wa raxmatun lilmu'miniin. wahudan waa xaqii iyo walcamalu bihi, cilmigii xaqa iyo ku camalfalkiisa. raxmadiina waxa weeye maa yaxsulu min alkhayr walixsaan wathawaab alcaajil aw ilaajil. raxmadiina waa saasoo kaleeto, waa thawaabtii iyo mataqaanaa khayrkii hadda aad helaysiiya kii dib loogu dhigaya. ducada in allah loo qeyla dhaansado ayaa ka mid ah daawooyinka rabbaaniga ah ee allah ku suuliyo cudurrada qofkana caafimaadkiisa ugu soo noqdo. allah isagoo ka warramaya nebigiisa ayuub calayhi salaam oo in ka badan 18 sano la dhibanaa xanuuno aad u daran oo culayskiisa allahu keliya uu garanayo, wuxuu yidhi وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. sheekh maxamed ismaaciil ha inoo bidhaamiyo ducadii nebi ayuub iyo caafimaadkii uu ka helay. وأيوب واذكر waxaad xustaa ayuuba nebi ayuub id waqti naadaa uu qayshaday rabbahu uu u qayshaday oo uu yidhi annii aniga masanii waxa i taabtay adduru dhibaato wa anta adiguna arxamuraaximiin inta naxariisataad ugu naxariis badan tahay. fastajabnaa lahu goortiiba waan ajiibnay, fakashafnaa waanu ka faydnay maa bihii wixii ku sugnaaday ee min durin dhibaato ahaa oo dhan waan ka faydnay. wa aataynaahu ahlahu ubadkii uu dhalay 14 ahaana dib baanu ugu soo noolaynay. wa midlahum macahum intii uu yacni haystay in la midoo 14 kale ana dib baanu ugu soo noolaynay. oo 7 wiil iyo 7 gabdhood bay markii hore ahaayeen, iyaga laftoodii biqudrati aljabbaar dib baa loo soo nooleeyey. wa midlahum macahum intii in la egna waanu u kordhinay raxmatan min cindina, naxariis xagga iyaga uga ahaatay bay ahayd. wadikraa inay kuwaana qaataan baan uga jeednaa lilcaabidiina kuwa ilaahay ku xidhan ee caabuda. daawooyinka waxtarka leh oo allah ku suuliyo cudurrada kuna soo celiyo caafimaadka waxaa ka mid ah tufta, sida ku cad axaadiista suubanaha sala allahu calayhi wasalam. sheekh cusmaan maxamed shire oo loo garan og yahay sheekh cusmaan dacwo oo ka mid ah culimmada muslimiinta ayaan su'aalo ka weydiinay arrimahaas. akhwatii fi lislaam, ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu ku yidhi
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن قرآن كحقي سوحا كسه أن دجننا ما هو شفاء وعافماد والرحمة ينحريس للمؤمنين ضدك مؤمنين تا عافماد ينحريس أي إليه مؤمنين تا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ظالمين تنمكر يوحا خسارة. كتابك إلهي وحويا كتاب لما يسترن وهنون وعافماد والنحريس وبركة خير. حديث بخاري وري صحيح عيسى وابن عباس رضي الله عنهما وري وحو الشيغي كوح وكمد أصحابة النبي محمد يسوع مرين عيل ميل بياه ومركا نين لقنيني وكسوغن يحي نين oo kamid dadkii ceelka meesha joogay biyaha ayaa u bandhigay ninkii dadkii saxaabada ah ay u bandhigeen war meedin ku jaamid wax tufa meeshan ceelka biyaha waxa ku sugan qanin la qaniinay nin iyaga kamid ah tagay wuxuu ku akhriyay faatihatul kitaab suuratul faatiha intii uu doono fabaraa ninkii waa bogsaday marka wuxuu la yimi ari ayuu la yimi ilaa asxaabtiis فكرهوا ذلك أرنكا ويقضين صحابتي وينعين وقالوا حين أخذت على كتاب الله أجرى كتابك إله هذا الشروق سوق عادت حتى أقدموا المدينة إلى المدينة سوق عليهم فقال واحد يا الرسول قال له كتابك إلهي أيونك الشروق قات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال له وحيري إن أحق وأحق لمبضا ما أخذتم عليه واحد قادتان أجر كتاب الله كتابك إلهي أحق لمبضا. marka laga hadlayo daawooyinka noocyadeeda kala duwan waxaa la yiraahdaa waxay u qaybsamaan kuwa ka hortag ah oo Allah ku ilaalinayo badqabka caafimaadka insaanka sidoo kalena looga hortago cudurrada ka hor inta aysan dhicin iyo kuwa ka daba tag ah oo la isticmaalo kadib markii uu cudurku yimaado si loola tacaalo. diinta islaamka waxay si loo ilaaliyo badqabka caafimaadka basharka ay bixisay talooyin iyo tawjiihaad wax ku ool ah si loo ilaaliyo caafimaadka waxayna sidoo kale tilmaamtay daawooyin haddii la isticmaalo ka hortag ah oo ka qabanaya cudurrada. mid ka mid ah waxyaabaha ka hortagga ah ee diintu tilmaamtay waxaa ka mid ah sadaqada oo ah daawo waxtar leh. nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi sadaqada ku daaweeya midkiina jiran. sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey ayaa inoo sharaxaya saamaynta sadaqada iyo waxtarka ay ku leedahay caafimaadka qofka ku dadaala bixinta sadaqada. shareecadu waxay runtii aad ugu dadaashay sixada iyo caafimaadka weliba laba qaybood bay ka hadashayoo ka hortag shareecadu way samaysay oo meesha alwiqaayatu khayrun min alcilaaj macnaha waxyaalaha sixada qofka sixadiisii caafimaadkiisa waxyaalaha ilaaliya shareecadu aad bay ugu hadashay oo ka dafciya qofka dee cudurradii iyo waxyaalahaas. kow waxaa ka ah sadaqada runtii aad bay u qaybo badantah aathaar badan haddii arrintaa way ku soo aroortay. sadaqada waa cajiib woon. ibnu qayim wuxuu leeyahay raximahu llah kitaabkiisa alwaabil sayib min alkalaami dayib wuxuu leeyahay fa ina lisadaqati ta'hiiran cajiiban fii dafci anwaaci albalaa walow kaanat min faajirin aw daalimin bal min kaafirin fa ina allaha tacaala yadfacu biha canhu anwaacan min albalaa wa hada amrun macluum cinda annaasi khaasatihim wa caamatihim wa ahlu lardi kulluhum muqiruuna bihi liannahum jarabuuhu. sheekhu wuxuu leeyahay sadaqadu saamayn cajiib bay ku leedahay balaayada ka hortaggeeda. balaayadii bay kaa dafcin walow haba ka ahaato sadaqada faajir baa ka ahata daalim baa ka ahata kaafir baa ka ahata ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kaga dafcinayaa aafadii noocyo badan oo dee balaayo ah. arrinkaana waa arrin macluum oo dadka la ogyahay khaasadooda iyo caamkoodaba ahlu ardaha dhammaanna wayba qireenoo maxaa yeele waaba la tijaabi waa la sida ku caddiinta islaamka culimmada muslimiintana in badan ay ka dhawaajiyeen tajrubo ahaanna loo arkay waxaan sadaqada ka dhicin islamarkaana xilliyada qaar ka saamayn badan qiyaamka amba salaatuleylka. marka laga yimaado fadliga iyo ajarka weyn ay xambaarsan tahay qiyaamuleylku waa mid ka qayb qaata caafimaadka jirka bini'aadamka. qiyaamuleylka ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah daawooyinka ka hortagga ah ee ugu nacfiga badan caafimaadka bini'aadamka waana mid jirka ka ilaaliya xanuunada qaar xoojiya awoodda jirdhiska islamarkaana nashaad iyo firfircooni geliya maanka iyo murqaha bini'aadamka. salaadan ayaa ah mid ay ku jiraan daawada jirka iyo hagaajinta qalbiga iyadoo salafku tilmaamayaan in waxtarka caafimaad ee laga helayo salaatuleylka iyo salaadaha kaleba
aysan ku jirin cibaadaadka kale oo allah ku addoonsaday addoommadiisa waa kan sheekh suldaan moxamed aalan moxamed oo si qoto dheer u sharaxaya salaatuliilka iyo faa'iidada caafimaad ay xambaarsan tahay xadiiska tirmidi abi umaama isaguna wuxuu nabigeena sala allahu calayhi wasalam uu ka maqlay inuu yidhi calaykum biqiyaami leyl waxaad la timaadaan qiyaamu leylka habeenkii kaca niska dambe kaca 8 saac iyo wixii ka dambeeya ilaa 9 saac haddaad kici kartaan haddii kalena 10 saacba kaca ilaa salaada laga tukanayo maxaa yeelay waa da'bu saalixiin buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam yidhi asaalixiina qablakum kuwii idinka horreeyey waa waxyaabihii mataqaanaa caadaadkoodii fiicnaa ee rabbi subxaanahu watacaala ugu dhowaanayeen weeye wahuwa qurbatan ilaa rabbikum waxayna tahay waa qurbadii rabbigii idin dhoweysay wamukafaratun lisiyi'aat waxay idinka masaxaysaa dembiyadii wamanhaatun lilism waxay joojisaa ama difaacdaa isimka iyo mataqaanaa dembiga wamadradatun liddaa waxay mataqaanaa maaragtay meesha ka saartaa ama burisaa xanuunka can iljasadi jirka xaggiisa ayay burisaa salaatuleylka wuu fiican yahay alxamdu lilah waa min asbaabi xifdi sixa wuxuu ka mid yahay asbaabta xifdiga sixada oo maanta o dhan baad mataqaana taagan tahay oo aayad akhriyaysaa kadib baad rukuucaysaa kadib baad maaragtay marka jirka oo dhan wuxuu qaadanayaa mataqaana jimicsi fiican buu qaadanayaa wuxuu qaadanayaa istaagga tirada badan ee lugaha oo mataqaana aan kaba sideen ay taagan yihiin rukuucda sujuudda dhammaan maaragtay wareegii dhiigga oo dhan bay mataqaana maaragtay ay ka shaqaynayaan waxay kaloo ka shaqaynayaan mataqaana dheecaamadii jirka ku jira oo dhan inay shaqeeyaan waxay ka shaqaynayaan maskaxdii oo mataqaana tadabbur samaynaysa baa shaqaynaysa lafteedu oo u fiirsanaysa aayaadkii markastoo tadabburkaagu bato iyo fikirkaagu batona waxaa kuu siyaadaya mataqaana maaragtay maskaxdaada iyo garashadaada iyo way siyaadaya haddii kaleeto dee asfal saafiliinkaad noqonaysa oo dadka mataqaana maaragtay asaasaqa ilaa kuwa mataqaana ilaahay ku xidhan ma asaasaqaan ee qur-aanka akhrisanaya ee soo jeeda ma asaasaqaan waxay kuu tahay soo jeedkaasi xitaa mataqaana maaragtay waa ribaad oo habeenkii oo dhan haddaad mataqaana maaragtay xaalad cadowga tarqubayo aad cibaadaadkaa ku soo jeedo dee adoo soo jeedo oo hubkaaga ku ag yaallo oo diyaara baad wixii ku imanaya baad mataqaana maaragtay wanaasiratun lilmadluum waxay u gargaartaa ka madluumka ah ilaa habeenkii dhan buu ilaah baryaya marka laga hadlayo daawooyinka rabbaaniga ah ee ka hortagga ah waxaa ka mid ah adkaarta uunana baray rasuulka sala allahu calayhi wasalam kuwaas oo faa'iidadooda iyo waxtarkooda ay sunnadu aad isula dhex qaaday salafkuna ay in badan tajrubeeyeen adkaartaas waxaana ka mid ah من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي waxaa sidoo kale jira adkaar kale oo muhiim ah isla markaana dhufaysi xersixir u ah qofka muslimka ah waana adkaartan أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق sheekh maxamed ismaaciil ha noo sharaxo qiimaha labadan adkaar ee aad maqasheen iyo faa'iidada ka hortagga ay u leeyihiin caafimaadka insaanka بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم مقع إلهي وحسهلا ماها ومقع مركع دونتي نبي الله نوح مركع دقاق يسو سلفك لغو استعراء بسنك إلهي بوها بروسنكيو بريق اللوغو قبتانا بسم الله بوها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم bisinka ilaahay wixii niyad loogu qabto ilaah waa barakeeya wixii shay laga doonayo barako oo aan bisinka ilaahay loo qabanna fa huwa abtaru aayo iyo cidhib damba ma yeesho marka bisinka ilaahay baad cuskanaysaa bismillaah magaca ilaahay baan cuskaday alladii allihi laa yaduru aanu dhibi karayn maca ismihi ruuxa magaciisa cuskada shay-un fi lardi walaa fi samaa axadka iyo ruuxa allah magaciisa cuskada magaciisaas uu cuskaday looma soo dhaafi karo ilaaha magaciisu difaaca adag uu yahay ilaahaasaan magaciisa qabsanaya wax samooyinka wax dhulka ku uumani uma soo gudbi karo walaa fi samaa'i samada wax ku uumanina ma soo gaadhsiin karo wax dhibaato ah magaca awooddaa leh ee ilaahay magaciisa ah ilaahaasaan magan gelayaa isamkiisa bismi illaah magaca ilaahay baan cuskaday alladii allihii
laa yaduru aanu dhibi karin maca ismihi magaciisa magaca alleh ciddii cuskata shay-un shayna aanu dhibi karaynin fil ardi dhulka ku nool walaa fi samaa'i samada ku uuman wa huwa ilaahay assamiicu ilaaha maqlo weeyaan addoomihiisa alcaliimu xaajooyinkoodoo dhanna ilaaha u cilmiga leh ayaan magaciisa aan la soo gudbi karaynin aan dayr iyo ka dhiganayaa difaac adag 3 jeer baad gabalku markuu dhaco iyo waagu markuu guduuto ducada aad ku ceshanaysa acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq intaana 3 jeer baad odhanaysa acuudu waxaan magan gelayaa bikalimaati illaahi taamaat kelmadaha ilaahay ee waafiga ah min shari maa khalaq wax kastuu ilaahay abuuray kelimaadka ilaahay ayaan ka magan gelaya waxaa sidoo kale la dhayalsan karin qiimaha suuratulbaqara ay u leedahay ka hortagga cudurrada sixirka iyo balaayada imaamu muslim wuxuu saxiix ku soo guuriyey xadiid uu abilumaamata albaahili ka warinayo nebiga sala allahu calayhi wasalam oo odhanaya حدثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة akhriya suuratulbaqara qaadashadeedu waa barako ka tegisteeduna waa qoomamo badaladuna uma babacdhigi karaan mucaawiya wuxuu yidhi albadala waxaa loola jeedaa saaxiriinta sheekh cuthaymiin allaha u naxariistay isagoo tacliiqinaya xadiiskan wuxuu yidhi suuraddaani waxay qofka ka ilaalisaa sixirka saaxiriintuna ma lahan awood ay ugu babacdhigi karaan maadaama saaxiriintu ay yihiin nuuc ka mid ah shayaadiinta allahna uu sha'nigooda ka yidhi وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله sheekh cuthaymiin allaha u naxariistee wuxuu isagoo hadalkiisa sii wata uu yidhi sidaas darteed wuxuu nebigu noo sheegay in qofkii akhriya suuratulbaqara kuna akhriya ikhlaasii iimaan uusan karaynin sixirka waxaana isku mid ah qofkii dusha ka akhriya iyo midkii kitaab ka fiirsada qofkii hal fadhi ku akhriya iyo midkii fadhiyo kala duwan ku dhammeeya aayadaha ugu dambeeya ee suuraddan ayaa sidoo kale qiimo gaar ah leh waana ka hortag uu nebigu tilmaamay inay kaga filnaanayso wax weliba ay ku jiraan cudurrada iyo balaayada sheekh cumar xayaakallah ayaa inoo sharaxaya faa'iidada ay xambaarsan yihiin labadan aayadood iyo weliba qiimaha mucaawadateenka ugu fadhiyaan ka hortagga cudurrada iyo ilaalinta caafimaadka insaanka روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحولي حديث صحيحة من قرأ بالآيتين لبا آيات قفك أخريا من آخر سورة البقرة سورة البقرة قبل إذا عدي أخرذة كفتاه ويكف لانيا إمام النووي وحو تعليقنا يا رحمه الله تعالى الله نحرس رحمة واسعة حديث كقيبة الضنبيع كفتاه ويكف ليهم حيك كف ليهم هذين نك أخريا لبضع يضوى كفرين بنوي قال النووي رحمه الله تعالى قيل وحال معناه وحكى لك أنت كفتاه من قيام الليل هذين كاستاجس وكعل هذا كفرين بالليل وقيل وحال من الشيطان ككفريهم وقيل وحال من الآفات مصائبتي برايد العسي ككفرين ويحتمل من الجميع وحصور تقرأ ضمان بينك كفرين تنطن بانا صحوه نبي إدلاقي عليه الصلاة والسلام إن لا إدلاقوا لنا ضمان مصائب كستي وح كستبان هات الشيطان كي أما مصائبتي العسي وحل بواكا كفرين اللي يرادو سلاس أيام في تعليق في عنبون إمام النووي صاري آيات كمين كل احترنية سورة قاركود أو فضائل قاري كسار ورطين حديث كان كذا وصحابي وريني عبد الله بن خبيب وريني وحولي رسول كان لبحني هبين مجدئة أو هبين روب له ولبنا مجدي جيد وآد أدقيه هبين بحني بوليه إن روب يسن أو روب له هبين كانوا مجدي ليه
خرجنا في ليلة مطر نبين رب يسمى بحري وظلمة شديد مجد أذقنا له معناها مذو بدن له نطلب رسولنا نقول رسولك يصلي لنا سوء نوتكيو فأدركنا هو سوء قاعدنا فقالوا حين أصليت 100 تكتين قال فلم أقل شيئا وحوم أنا له وحشونا يعني كذا فقال نبي قل له فلم أقل شيئا وحوم أنا له ثم قالوا حين قل له فلم أقل شيئا وحوم أنا له ثم قالوا حين قل له فقلت يا رسول الله ما أقول محان لها قال حين قل حتى هذا قل هو الله أحد معوذتين كان آخر السلام قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس باللوتش دايم حين تمسي مركز قرابيسا وحين تصبح مركز وبريسا 3 مرات آخر صوت تكفيك ويكاغفر من كل شيء فلاجل هذا حاول أن يقف كمسلم كي صلاة مغرب مركو كان بحو أذكارت ولما يستوي إنه معوذتين كي إخلاص كو آخر استوى سد حجار صلاة الصبح مركو كبحنا سيدا وكالتين آخرين وكذلك وحي كجران بأذكار الصباح والمساء لبدو يكجران لإلالي أذكار الصباح والمساء أين كسور تجلسا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم halkan ha inoo joogto xalqadan halkaas ayaan ka sii ambaqaadi doonnaa xalqada xigta insha allah sidaasii nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع